asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. daawadayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo xogta cayaaraha qodobada ugu waaweyn warkeenan waxaa ka mid a kooxda atletico madrid oo 126 milyan kula soo wareegtay cayaaryahanka benfica joy felix. chelsea oo 50 milyan cayaaryahan rasmi uga dhigaysa cayaaryahan covich oo kooxda real madrid ay iska leedahay oo amaah ahaan ugu cayaarayay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay kooxda chelsea. manchester city oo beddelka zilfa ka soo qaadanaysa real madrid. kulamadii laga ciyaaray koobka qaramada qaaradda afrika iyo kulamada la ciyaari doono caawa ayaa warkeena idinkugu soo gudbin doonaa, balse haddaad ku cusubtahay janalkeena subscribe inoo saar. waxaanu ka hormaraynaa kooxda kubadda cagta atletico madrid ayaa cayaaryahanka kooxda benfica joe felix waxay kula soo wareegtay qiimo lacageed gaaraya 126 milyan, isagoo markaa heshiisku uu lagu tilmaami karo mid markaa dhammaaday oo la isku raacay, maadaama cayaaryahanka kooxda kubadda cagta benfica joe felix uu ku sugan yahay dalka Spain, gaar ahaan magaalada Madrid. heshiiskan ama qiimahan lacagta ee 126 gaaraya ee kooxda atletico ay ku soo qaadanayso cayaaryahanka benfica ayaa waxa uu markaasi noqonaya mid jebinaya rikoodhka qiimaha cayaaryahan ay ku soo iibsadaan kooxda atletico. cayaaryahankii kooxda kubadda cagta Monaco iyo xulka qaranka ee Faransiiska Thomas Lima ayaa waxay ku soo qaateen xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay 72 milyan, balse hadda 126 ayaa la isku raacay Joe Felix in markaa kooxda Atletico ay ku soo qaadato. durba waxaa lagu soo warramayaa in cayaaryahankan 18 jirka uu ku sugan yahay gudaha dalkaasi Spain, isagoo markaasi macquul tahay in uu markaa u maro caafimaadka kooxda kubadda cagta Atletico ee saacadaha nagu soo foodle. kooxda Chelsea ayaa waxa iyana markaasi doonaysaa in cayaaryahanka Covich ee u ciyaara kooxda kubadda cagta Real Madrid ay milkiyadeedu leedahay, balse u ciyaarayay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay kooxda Chelsea oo si amaahna uga ciyaarayay, ayaa waxa ay doonaysaa Chelsea in cayaaryahankaasi ay ka dhigto cayaaryahan rasmi oo kooxda Chelsea ay milkiyadeedu leedahay. ninka lagu magacaabo Gianluca Di Marzio oo markaasi warbaahinta Sky Sport u shaqeeya ayaa arrintaasi bariisa bulshada markaa dhigay in cayaaryahan Covich oo 50 milyan markaa kooxda Chelsea ay ku qaadanayso, oo markaa 44.7 milyan ama 57 milyan uu markaasi noqonayo heshiiska uu sida rasmiga ah kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay ugu qaadanayso in ay markaa ciyaaryahanka rasmi ka dhigto Realna ay isku raacaan. laakiin kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa ilaa imika wax war ah ka soo saarin, laakiin xiriirka kooxda Real iyo Chelsea ayaa waqtiyadii ugu dambeeyay soo hagaagayay oo aad u wanaagsanaa, maadaama cayaaryahanka ugu fiicnaa ee Premier League Eden Hazard Chelsea ay ka iibisay kooxda kubadda cagta Realna macquul waxaa ka ah in cayaaryahankan si rasmi u siiso kooxda Chelsea. Manchester City ayaa waxay indhaynaysaa beddelka cayaaryahan David Silva oo markaa kooxda kubadda cagta Manchester City u ciyaarayay 10 sano. wargeyska Mark ee ka soo baxa dalka Spain ayaa waxa uu daabacay in kooxda kubadda cagta Manchester City beddelka cayaaryahanka David Silva ay ku bedelan doonto cayaaryahanka kooxda Real Madrid Isco ayaa waqtiyadii ugu dambeeyay waxaa la xiriirinayay kooxo dhowr oo markaa Premier League ligaha dalka Spain, Serie A dalka Talyaaniga iyo Faransiiska oo PSG ay tahay lislaha inuu markaasi aadi doono, maadaama uusan boos joogta ka haysanin qaab ciyaareedka Zinedine Zidane uu doonayo. Isco ayaa la leeyahay in uu u noqon doono beddelka Guardiola David Silva oo ah halyey kooxda Manchester City ay weligeed xusuusan doonto, ayaa waxaa la sheegay ama uu isaguba sheegay inuu kooxda gabi ahaanba isaga tagayo 10 sano oo markaasi si joogta ugu sugnaa garoonka Etihad Stadium ee magaalada Manchester. ugu dambeyntiina kulamadii ugu dambeeyay la ciyaaray ee koobka qaramada qaaradda Afrika ayaa waxay u dhaceen sidatan. xulka qaranka Uganda iyo xulka qaranka Zimbabwe ayaa kulan xiiso badan dhaxmaray, hal ayeen markaasi ku wada heshiiyeen. Egypt oo markaa koobka martigelinaysa ayaa 2-1 ugu adkaatay DR Congo, waxaana u kala dheliyay Ahmed Al Mohamed ninka lagu magacaabo iyo ciyaaryahanka Mohamed Salah.
Nigeria iyo Guinea na 1-waxba Nigeria ayaa ku adkaatay. Kulamada maanta ilaa caawa dhici doona waxaa ka mid ah Senegal iyo Algeria ayaa wada ciyaari doona. Kenya iyo Tanzania oo ay wada balansan yihiin koobka qaramada qaaradda Americana waxaa wada ciyaari doona ama Copa America koobka lagu magacaabo Brazil iyo Paraguay. warkii aad ka daawanayseen xogta ciyaarahana waa naga inta.